عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago buuggan oo ujeedin waa buugga taariikhda ee looga dhigto dowladda Ethiopia saa hoos ujeedin waxaa ku xusan the Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Education that means dhammaan isteedyada ee Ethiopia u taliso waxaa laga qaataa fomankooda markii la joogo maadada taariikhda buuggana lagu qaataa okay marka aad eegtid buug taariikh waxaa kugu soo dhacayo taariikh waan ka hadlaynahay maxaan u soconaa buugga taariikho kala duwan oo Ethiopia ka hadli doona laakiin ujeedkan buuggan hadda aan anaga rabno inaan kaga hadalno wuxuu yahay Imaam Axmed buuggan muxuu ku tilmaamay okay buuggan page-kiisa 189 waxaa ku cad saa ujeedin qaybtan kor hadda waa ama helayda noo saaray wax yar dulqaad okay saad ujeedna meesha helaadka noo saaran waxaa ku xusan Ahmed ibn Ibrahim al-Qazi his popular known in the Christian highlands as a grain the left-handed there's a lack of clear evidence about his family background wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Ahmed ibn Ibrahim al-Qazi Allah raxmade oo loogu aqoon og yahay markii la joogo Ethiopian highlands Axmed Gurey waxaa jirta uu leeyahay inaan loo hayn caddeyn dhanka background familigiisa ah there's a lack of clear evidence about his family background laakiin wuxuu ku leeyahay buugga according to his chronicle macnaha buugga asiga laga qoray ee la yiraahdo Futuhul Habash belonging to wuxuu Axmed Gurey ka soo jeedaa a clan called Balaw qabiil la yiraahdo Balaw kuwaasoo dega magaalada la yiraahdo Hobart oo u dhow present day Babli maanta aan joogno magaalada Babli la dhaho ee u dhowdaa lagu leeyahay meesha la yiraahdo Hobart qabiilkuna waa Balaw okay buug waxyaabo kale oo ka sii hadlaa laakiin ujeedkeena wuxuu yahay raggan waxay sheegeen waxaa jirta ku leedahay lack of clear evidence macnaha caddeyn xoogan uma hayno reerka uu yahay backgroundkiisa laakiin buugga asiga laga qoray waxay kasoo daliishteen macnaha according to his chronicle the Futuhul Habash buugga la yiraahdo Axmed Gurey inuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Balaw oo ku dhashay magaalada Hobart taasoo ku taala near Babli magaalada Babli la yiraahdo maanta ku taala macnaha ayaga meel u dhow ay taagan yihiin Babli laakiin waa tuulo Babli hoos tagta waxaa la yiraahdaa Hobart maantadan la yiraahdo isla Balawgina waa degan yihiin oo ku nool yihiin meesha marka qof marka qaar waxaan la yaabaa dhalinyarada taariikhda ka wada hadalno qof systemka Ethiopia wax ku soo bartay buuggan soo akhristay haddana iska indhatiraa buugga wuxuu leeyahay isku dayahay inuu qabiilo kale ka riday imaamka reerkiisa ugu yaraan dowladda Ethiopia waxay taagan tahay according to waxay soo daliishanayaan ayada buug xilliga agaarkiisa la qoray imaamku ku dhintay kadib ayagoo daliishanaya buuggaas waxay ku dhaheen waxaa lagu sheegay Axmed Gurey inuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Balaw wuxuuna ku dhalay macnaha dega magaalada Hobart maantadan la joogana magaalada Hobart waxay u dhowday ku leeyihiin Babli waxa la iska indhatiri karaa meesha ma yaalaan su'aal waxaan rajaynayaa inta maamul dowladda Ethiopia wax ku soo baratay inay buuggan ka dharagsan yihiin waa mahadsantihiin intaa un baan rabay inaan idin wadaago insha Allah wixii taariikh kalena waa isla eegi doonaa insha Allah